السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برامج كمدشة برتا عيارها .com اياد كداون دونتان نصر حسن محمد نصرين اياد لسعودسين دونت فضلا هدي ادكو عصبتا يوتيوب جانال كينا سبسكرايب لايك and share مركلة اي برامج كمدشة عيارها. sidoo kale barnaamijkeena waxyaabaha ugu waaweyn aan kaga hadli doono waxaa kamid noqon doona ciyaarihii la ciyaaray kuwa la ciyaari doono iyo waliba sheekooyinka ugu waaweyn suuqa waxyaabaha hadii aan ku horeyno kulamadii la ciyaar kuwooda ugu xiisaha badnaayna waxaa kamid ah horyaalka Premier Division ka ciyaarihii ka dhacay waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Real Madrid gurigeeda Santiago Bernabeu gool darro waxay kala kulantay kooxda kubadda cagta Girona ciyaar ku soo dhamaatay 2 gool iyo gool. sidoo kale ciyaarihii dhacay waxaa kamid ahaa Valencia Mastella ayay barbardhac kala kulantay kooxda ka imaada gobolka Catalan ee Espanyol halka Villarrealna gurigeeda ay 3 gool iyo kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. sidoo kale horyaalka Italian Serie A ciyaar xiiso badan ayaa ka dhacay Fiorentina iyo Spal ciyaar isku arkeen 4 gool iyo gool. kooxda Fiorentina ee magaalada Valencia ka imaada ayaa guul ku gaartay halka Empolina 3 gool iyo kaga badisay kooxda kubadda cagta Sassuolo. Genoa 2 gool iyo gool kooxda Lazio ayay dirtay بريها لازية ما أهان لازية دي اللي يقارنة يودني جول يبرا يكجب بس كوحدة كوبا عكت كيافا إنتر ميلانا لبا جول يجول سان استاديوم أما جوزيبا ميزا وحي كجب ديان كوحدة كوبا عكت زمبدوريا نابولي عيارتي جود كنارتا كدا عضي سيدو قالنا كومر تجلس كوحدة كيما دقب الكبيان ضمودنا تورين بربردا يبرا يكوشين كوحدة كوبا عكتا نابولينا waxaad moodaa xaalad ahaan inaysan aad u wanaagsaneen marka loo fiiriyo in kulankan uu ahaa mid muhiim ah inay guuleystaan laakiin ay u suurtagal weysan inay guul gaaraan. waa ciyaarihii la ciyaaray waxaan fiirin doonaa kuwa la ciyaari doono haba ugu xiiso badnaado kulanka adag ee dhexmari doona kooxaha Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Manchester United. alla muxuu war yaalaa labada kooxood toddobaadkii la soo dhaafay wax laga sheekeyn kara ma ahayn war ma galay noqonahay hadda labadooda isku jabi doona toddobaadkii la soo dhaafay Chelsea horta waa ceebeysneed taas lagama sheekeyn karo. Chelsea waxay ku soo ciibooday Etihad Stadium Manchester City nus dersan gool kaga soo badisay inda taag moogi tala kale meesha kuma heen. Manchester United-na ninkii Newcastle Alex Ferguson lahay markuu baxay ama markuu aan raado markuu soo dhaway kooxdii PSG oo Neymar la'aan ahna taariikhdii ku dhacday waan ogeyn balse kulankaas ayaan ka sheekeyn doonaa. war inuu galay noqonin hore idin kugu sheegay war inuu galay noqonin ana hore idin kugu sheegan ku dhahay Manchester United iyo Chelsea kulan adag ay ciyaari doonaan kaasoo FA Cup ka tirsan garoonka Bridge ayaa lagu ballansan yahay labada tababare horta nin Marouche Sarri la dhaho ilaahayow hadoo kaas aniga nasra ilaahay macbuudka noosan igu gaarin aan ku dhahay farsamo macalinimo inta ebadkay ku arkay nin haysto N'Golo Kante oo hadana maxay aheeto Jorginho ka dhiganayo قدح ولقد لما شيء نقول ولقد وحاس يقصي درا مانشستر في عنت هاي لكن بهتدي جرتها وحسيتها هاي داوع عقلي بل aan fiirina ciyaartooyda waxaan ku bilaabi doonaa labada kooxood ciyaartooyda ka maqnaan doonto iyo waliba ciyaartooyda u ciyaari doonto. Manchester United dhibaatada ugu weyn ee qabta waxay tahay maqnaashiyaha Jose Lingard iyo Antonio Martial kuwaasi oo dhowr toddobaad ka maqnaan doona kooxda Manchester United. Antonio Valencia hore u dhaawacna Matia Darmian sidoo kale balse waxa kooxda akhbaar farxad leh ah in Marcos Rojo dib u soo laabtay. Alexis Sanchez-na shaki weyn ayaa ku jira dhanka Chelsea marka aan fiirno Robin Loftus-Cheek Gary Cahill iyo Drinkwater shaki ayaa ku jiri doona. Drinkwater waa musharax kursiga kadku qurxiya mooga soo ciyaara shima aragnabo marka aan fiirino labadan kooxood xaqiiqooyinka hor kulankan iyo wali waxyaabaha yaalo waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Chelsea wax gool laga madan 6 kamid ah shantii waa 6 kamid ah todobadii kulan ee ugu dambeysay FA Cup ay ciyaaraan FA Cup lagu faciyaa meeshan sidoo kale hadii aan sii fiirino Manchester United waxa leeyahay ay guuleysanayso 7 kamid ah 8 kulan ugu dambeysay FA Cup-ha sidoo kalena kooxda Chelsea waa ay guuleysanaysaa leeyahay 6 kamid ah todobadii kulan ee ugu dambeysay ay ciyaaraan kulan FA Cup ah marka sidaas darteed waxa meesha iskaga cad waxa wada ciyaari doona laba kooxood oo aqoon fiican u leh kul tartanka FA Cup-ha sidoo kale Chelsea waa guul darar la'aan 10kii kulan ugu dambeysay gurigeeda ee Manchester United kula ciyaarta dhammaan tartamada. Manchester iska gacan gashay Manchester oo imaada Bridge oo ku badiso xilliga ma dhaweyn ma aqaan hadii
Solskjaer ceebtaas ka dhaqi doono kooxda Manchester sidoo kalena uu guul gaarsiin doono sidoo kale waxa leeyahay Manchester United-na waxa leeyahay markay ugu yartaa 2 gool iyo wax ka badan ay dhalinayso 7 kamid ah 8 kulan ugu dambeysay FA Cup ciyaaraan balse hadii aan fiirino saadaasha kulankan waxa lagu saadaaliyay 2 gool iyo eber kooxda kubadda cagta ee Chelsea inay ku badin doonto shaxda macquulka ah labada dhinac hadii aan fiirino Chelsea 4-3 ay ku ciyaari doontaa kooxda gurigeeda iskala bridge ayaan lagu ciyaari doonaa balse Balanga ayaa ku soo bilaaban doona Luis iyo Rudiger Azpilicueta iyo Alonso sidoo kalena Kante Jorginho iyo Bagley ay noqon doonaan ana horaan kugu sheego odaygan ogyaalaha weyn waxaan ka wada macalin saari habarteeda ay ka tahay inoosan xabad isku weyn lacala shaxda ay u jeedo qadkan dhexe waa qadkii dhexe waa dad isku hurday ahaayeen kulanka Itixaad waa hurdayeen ma aqaan xalay ma habeenkaas ma dhafreen ma ogi Higuain Pedro iyo Hazard ayaa lagu soo bilaabi doona macnaha waxba iskama bedelin shaxdii toddobaadkii la soo dhaafay ceebta ay kala soo kulmeen garoonka Itixaad Stadium dhanka Manchester marka aan fiirnana waxa ku soo bilaaban doona goolhaye Romero sidoo kalena Smalling iyo Jones sidoo kale Shaw iyo Young waxay noqon doonaan garbaha Hareera Matic iyo Pogba waataan ogeen kulankii ugu dambeeyay qadka dhaxaba waxa kala wareegay ninkii Talyaaniga ahaa Marco Verratti marbalan aragna bal hadii qadkan dhexe Manchester hurday ku jiraan qadkaas dhexe Chelsea kuwaas ka dhaaf waa tageen kuwaas hurdo waa la tagtay baash aan aragna marka hadii ay xisaabtami doonaan kulankan adag iyo waliba cid guusha raaci doontaba xisaabtan ku darso cid walba qadka dhex looga adkaadana in ay noqon doonto in guusha raaci doonto Rashford iyo Lukaku waxay noqon doonaan ciyaartoy afka hore weerarka kooxda kubadda cagta Manchester United kaga ciyaari doona kulankaas labadan kooxood marka aan fiirino kulamadii ugu dambeeyay iska hor imaadeen aan dhageystayaasha dib u xusuusino dhageystayaal afka barta kooxda Chelsea iyo Manchester kulankii isugu dambeeyay bridge kale 2-2 ay ku heshiiyeen waa kulankii xisaab badnaa horyaalka Premier League wada ciyaareen kii ka horeeyay gool iyo Chelsea ayaa ku badisay mar lagu ciyaaray garoonka Old Traffordna 2 gool iyo gool waxa ku soo badisay kooxda kubadda cagta Manchester United sidoo kale marka sii horeysay bridge ciyaar ka dhacdayna gool iyo Chelsea ayaa ku badisay si lamid ah kulankaas kii ka sii horeeyana 2 gool iyo kooxda Manchester United ayaa garoonka Old Trafford ku soo badisay xilli bridge la imaadana 2 gool iyo gool kooxda Manchester ayaa ku badisay taasi micnaheedu waxay tahay waa kulan 2 kulan 3 kulan 4 kulan ugu dambeysay Manchester tusaale waxa kugu filan ba bridge soo booqdaan wax guul ah ma gaareynin labadan kooxood marka aan fiirino Chelsea kulanka soo aadan kulan ka tirsan tartanka UEFA Europa League kooxda maalmo ay gurigeeda kula ciyaari doonaan kulankooda ugu dambeeyana maalmo ay 2 gool iyo gool kaga soo badiyeen kasto Premier League kulankooda ugu dambeeyay ciyaaraan City gool dar 6 gool iyo eber ay kaga kulmeen Manchester United kulanka soo aadan Liverpool ay Premier League la ciyaari doonaan kulankooda ugu dambeeyana PSG ay gool dar kala kulmeen ciyaar gurigooda iyagoo ku sugan 2 gool iyo eber lagu beerka loogu tumay dabcan 3 gool iyo eber ay kaga soo badiyeen kooxda kubadda cagta Fulham kulankii ugu dambeeyay ciyaaraan horyaalka Premier League waana kulamada kooxda kubadda cagta Manchester United ay ciyaareen iyo kuwa ay ciyaari doonaan sheekooyinkii ugu dambeeyay suuqa hadii aan hal iyo laba dhahnana suuqa kaliisiga ciyaartooyda waxyaabo badan ayaa ka muhiim ah inkastoo suuqa uu xiran yahay haddana waxaad moodaa kooxaha inta badan inay ka fikirayaan suuqa xagaaga markii la gaaro koox walba waxay diyaar u tahay inay soo qaato ciyaaryahan u muhiima arinta ugu weyn waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester United waxay indhaha ku hayaan qaabkii ku soo qaadan lahaayeen ciyaaryahanka kooxda La Vecchia Signora ama kooxda kubadda cagta Juventus ninka lagu magacaabo Paulo Dybala si uu bedel ugu noqdo xidigii hore ee kooxda Everton Romelu Lukaku asagana wuxuu ka mid noqdayba ciyaartooyda wax matarayaasha eeba shaki ka gelinay inay gool dhalin karaan ayuu qayb ka noqday sidoo kalena iyo kooxaha kale ee badgoobka ciyaartooyda ugu jirno waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Arsenal waxa la leeyahay si shock ah waxay ugu dhaqaaqday Burnley gool hayaheeda iyagoo waliba diyaar u Arsenal waxay aaminsan tahay in ninka Jarmalka kaligiisa isku haleyn karo sidoo kalena kooxda ay gool hay kale ay soo qaadan doonto West Ham waxay diyaar u yihiin iyagana xagaaga markii la gaaro inay la soo saxiixdaan ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Manchester United difaac uga ciyaaran ninka lagu magacaabo Eric Bailly ninkan kooxda ninkii keena waa uu ka dhaqaaqo waana Jose Mourinho sidaas darteedna wuxuu diyaar u yahay in gabi ahaanba soo gabagabeeyay waayihiis ciyaareed garoonka Old Trafford magaalada Manchester dalkaas Ingiriiska isagoo rabo inuu u soo wareegto magaalada London kooxda West Ham ayaana diyaar u ah gabi ahaanba ciyaaryahankan inay ka soo wadaan garoonka Old Trafford masraxyada iyo qayb ka dhigi doona mashruucooda xil ciyaareedka soo aadan
guud ahaana waxaa halkaas iga barnaamijkeeni madasha tan intaan barnaamijkan la mid ah aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo